الحمد لله إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka inoo idmay inaan fadhiisano masaajidu waa khayrul biqaac dhulkan aan dul joogno meelaha ugu khayr badan ee ilaahay jalla wa ala agtiisa laga jecel yahay waa masaajida أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق نبي عليه الصلاة والسلام waxaa inoo sheegay dhulka meelaha ilaahay ugu jecel yahay waa masaajidiisa meelaha ilaahay ugu neceb yahayna waa aswaaqda weeyaan suuqu waa meesha tijaarada adduunyadu ay ka hirgasho masaajiduna waa meesha ay ka hirgasho tijaarada aakhiradu tujaaru dunya aswaaqda ayaa laga helaa tujaaru aakhirana meesha mar walba laga helo waa masaajida weeyaan Sufyaan ath-Thawri rahmatullahi alayhi ayaa oran jiray al-mu'minu fil masjid kas-samaki fil ma' qofka mu'minka masaajidka dhexdiisa marka uu joogo wuxuu la mid yahay sida kalluun biyo ku dhex jiro oo kale kalluunka noloshiisa oo dhan waxa lagu xidhay waa biyaha hadii biyaha uu ka dhaxbaxana isaga dhibaato oo dhimanaya muuminkana meesha uu ku noolaada waa masaajid meesha qalbigiisu ku xasila waa masjid meesha uu diintiisa ka barta waa masaajidka meesha muuminku ilaahay kaga xidhmaa waa masaajidka noloshiisa muuminku meesha uu ku toosiyaa waa masaajidka meesha ilaahay kaga xidhmaana waa masjid muslim baan ahay masaajidkana kuma xidhni waxay ka dhigan tahay ilaahay cilaaqo lama lihi bay ka dhigan tahay ibn Abbas radiyallahu anhuma ayaa la weydiiyo lagu yiri ninka salaada jumcadana aan soo xaadireynin salaada jamacana aan ka soo qayb galeyn waxa oran lahayd markaas uu huwa fi naar haduu sida ku dhinto naar buu ku dhex jiraa buu naar ninka salaada jumcana aan soo xaadireyn shanta waqtina jamaca aan laga helaynin jamaca aan ku xidhnayn jamaca muslimiinta haduu sida ku dhinto naar buu ku jiraa buu yiri marka muuminku meesha uu kaga xidhmaa rabbigi waa masaajidka meesha uu akhlaaqda wanaagsan uu ka kasbada waa masaajidka meesha uu shariicada islaamka iyo diintiisa uu ka bartaa waa masaajidka meesha qofka dadnimadiisu ay ku hagaagtaa waa masaajidka marka noloshiisa oo dhan baa masjidka ku xidhan qofka muuminka sida ilaahay ugu xidhmaayo masjidku ka baran sidoo labada waalid u raali gelinaya masjidku ka baran sida uu ganacsiga u hirgelinaya ganacsigiisa masjidku ka baran sida uu jaarkiisa ula dhaqmayo cilmiga masjidku ka qaadan sida uu ganacsanayana cilmigeeda masjidku ka qaadan haduu ummad maamulayana xabka u maamulayo cilmigeeda masjidku ka qaadan muuminku masaajidka markuu dhex joogo baa la yiri waa sida kalluun biyo ku jiro oo kale والمنافق في المسجد كالطير في القفص qofka munaafiqa masjidka dhexdeeda markuu joogana wuxuu la mid yahay shimbir banaanka uu iska duulayo iska xayaadaya laga soo qabtay oo qafas lagu dhex riday meeshiisi ma laana shimbirku daa'iman meesha loogu talagalay waa hawada yatiir fi الهواء qafas marka lagu ridana waa ciriiri buu dareemaya munaafiq masjidka marka uu soo galana wuxuu la mid yahay sida maaragtaan shimbir qafas lagu dhaxriday buu la mid yahay masaajidu marka waa meesha ilaahay arlada ugu jecel yahay malaa'iktu xataa marka imanayso masaajid ka bilaabaan safarkooda masaajidka qofka ku xidhan ee ku taxan wuxuu noqdaa jaliisul malaa'ika qof mar walba malaa'ikta la fadhiyo buu noqonayaa laana majliska neemka aan fadhina waxa uu nabigu noo sheegay malaa'iktu inay la fadhiisanayso inna lillahi sayyara ba nabigu inna lillahi malaa'ikatan sayyara
ilaahay waxa uu leeyahay malaa'ig arlada dusheeda ayay socdaan yaltimisuuna majaalis adh-dhikri majaalista ilaahay lagu xusay ayay raadiyaan malaa'igta kamida markuu arko wuxuu leeyahay halummu ila haajaatikum malaa'igtii kale ayuu ku leeyahay muraadkada arlada u timaadeen aad kala haydeen aniga arko la kulme kaalaya buu leeyahay dana malaa'igtu markaas garbahooga ayay saaraan baa nabigu calayhi salaatu wasalaam ila samada adduunyada ayay buuxinayaan majliska markay ka noqdaan ilaahay jalla wa ala dhinaciisa u noqdaan ilaahay ku odhanaya maanta maxaad la kulanteen oo maxaad ku urursanaydeen waxay odhanayaan adoomahaaga kamida ayaan la kulannay adigay ku weyneynayeen adigay ku ammaanayeen adigay ku nazahayeen adigay kugu mahadinayeen markaasuu ilaahay may arkeen aniga may arkin hadday arki lahaayeen bal ka warrama baa ilaahay yidhaahdaa markaasuu leeyahay malagii hadday kuwa ku arki lahaayeen ayagoo adiga aanan ku arkin bayba ku ammaanayeen oo kugu mahadinayeen oo ku weyneynayeen hadday adiga ku arki lahaayeen sida hadda ay ku ammaanayeen ku xusayeen si ka sii ziyaadsan bay ku hadal hayn lahaayeen markaasuu ilaahay yiraahdaa maxay weydiisanayaan bal ii sheega markaasuu yiraahdaa malaga jannada ku weydiisanayaan oo jannadeeda may arkeen may arkin hadday jannada arki lahaayeen bal ka warrama sida hadda jannada ku weydiisanayaan si ka daran ay jannada ku weydiisan lahaayeen markaas ay ilaahay yiraahdaa maxay ga magan galayeen naarta oo naartayda may arkeen maya hadday arki lahaayeen bal ka warrama hadday arki lahaayeen sida hadda ay naarta kaaga magan galayaan si ka sii daran bay kaaga sii magan gali lahaayeen marka u dambaysa ilaahay malaa'igta wuxuu ku yiraahdaa fawshidukum ya malaa'ikati anni qad ghafartu lahum malaa'igteedii marag waxaad iga noqotaan adoomahayga halka fadhiya aniga dartay u fadhiyay inaan dambigoodii dhaafay buu ilaahay yiraahdaa malag baa hadloo yiraahdaa fiihim fulaan adoon hebel la yiraahdaa majliska ku dhex jiray isagu muraadkiisu ma ahayn inuu xuskaaga dhageysto inuu ammaantaada umu fadhiisane laakiin muraadkan uu meesha ka lahaa markaas ilaahay odhanaya humul qawm la yashqa bihim jalisuhum kuwaas waa qoom kala fadhiistaan ma hooga isagana dambigiisa dhaafa baa ilaahay ku yiraahdaa majalistan ilaahay aan ku ammaanayno ee diinteena macaan isku baraarujinayno ama quraan aan ku akhrisanayno ama xalaqaat ilmi masaajidana aan kaga qayb galayno ama kaliga intood masjidka aad fadhiisata aad ku dhikrinaysid aad waqtigaaga adduunyada intood ka soo goysid aad masaajidka ilaahay ku camiraysid dambi dhaaf baad ka helaysaa qalbiga ayaa kuugu xasilaya malaa'igta ayaa kuugu ducaynaysa ilaahay baad ugu dhawaanaysaa walbahaarkii adduunyada ayaa kaaga baaba'aya masaajidka huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu iimanan ma'a iimanihim sakina qalbigana ku soo degaysa sakinadu waa maxay iimaankii aad lahayd baa iimaan kuugu ziyaadaya aqoontii aad lahayd baa aqooni kuugu biiraysa cilmigii aad lahayd baa cilmi lagugu daraya qurb min allah hadba intaad ilaahay aad u dhawaan jirtay in ka badan ayaad ilaahay u sii dhawaanaysaa markaad masjidka ku nagaato marka masaajidka hadduu qofku xaqiisa u bato jaliisul malaa'ika ayuu noqonayaa qofku hadduu xagga suuqa u batana jaliisu shaytaan buu noqonayaa shayaatiintu la fadhiisanayaa halka masaajidana malaa'igtu ay imanaysa baa la yidhi aswaaqdana shaydaan ayaa calankiisa ka taagto junuudiisa ka kala dira marka qofka suuqa u bata tabiicadaha abaaliista tabiicadaha shaydaanka ayuu yeeshaa shaydaanka dabeecadiisu waa maxay al-isyaan wal-kibr wal-hasad wal-bughd nacam wal-kufr wal-iyadu billah sifaadka xun ee damiimada ee qofka lagu arkana ilaahay uu ka dheeraanayo ayaa qofka ku beeranta hadduu qofku majaalista suuqa u bato lidalika nabigeenu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa uu ka ilaalin jiray suuqa inay fadhiistaan iyaakum waljulusa fi turuqat yako suuqa fadhiyo maalin arkay wuxuu ku yiri jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniga digayaa buu rasuulku yiri ma lana min majalisina budun natahaddathu fiha biladin meel kale ku sheekaysano ma haysan nabi allah sheekadoodu maxay hayd bay kula tahay diinu bay ka sheekaysanayeen jaahiliyadii noloshay ku jireen iyo islaamka macaankayga isku barbar dhigayeen diinta nabi maxamed ku soo degtay bay mar walba majaalista suuqooga isku barayeen marka uu nabigu yiri hadii dariiqa fadhigiisa aad ka maarmi weydaan oo meel badiilood fadhiisataan oo meesha meel ka duwan aanad haysan waa hagaaga dariiqa xaqiisa siiya buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam
وحق طريق نقول يا هو محي وحو النبي يقول غض البصر عنده إن الله أبو النبي يقول كف الأذى ذاتك طريقة مرة أنا دبتينك الله أبتوك هايست أبو النبي يقول رد السلام ذاتك طريقة مرة يا مركا إن سلامنا سلامة وعلي يقول أمر بالمعروف ذاتك طريقة مرة يا أبو النبي يقول وناقي خير كفر وخير كأشياء نهي عن المنكر ذاتك طريقة مرة يا المنكر شرعك وح إنكرسن وح شرعك إسلامك إنكري ذاتك أي نلوش وذا كم موقته منكر ككرب أبو رسولك يقول شنتا قصلا قفك هدو لي هاي طريقة أو فريسان كرا شنتا صفة هدو قفك أوسن لا من كرين طريقة وحو كقاضية دم بيوم كقاضية يقول إنه قفك إنه سيلالي وقعنتي سكا إلالي مسلمين تدبتو سلام هدي الله سلامنا سلامته إنه عليو ذاتك وناقة إنه فرو حماهن أو كريب الله نسي صفات كاس دين الإسلام هو دين بلارن طريقة حقي سيبك هو قيحدك هو شكته من حق إلهي كقول هانا ويكون عديسي إلى طريقة ذاتك مسلمين تكدح أي مريان حقوق ذا أولي هين دين الإسلام هو يكون شكته marka goolay dadkeenan waxaan u badanahay dadka suuqa ka bay'ay mushtariinay Soomaaliya bay'ay mushtarkiin Allah inii barakeeyo amiin hada lana tijaarada wanaagsan ee xalaasha waa cibaado bay culimadu yiraahdaan waa cibaado oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha dirhamka